oo lagu dhegan yahayna waxaan rabaa inaan kelmad aan isleeyahay waa cadaalad dadka iyo sheekha kale iraaho. ugu dambeynna waxaan rabaa inaan fariin u diro madaxweynihii hore ninkii loo jeeday Farmaajo oo la hadalhayo inuu waddanka dib ugu soo laabanayo, dabcanna uu damac siyaasadeed leeyahay. fariin baan u dirayaa, laakiin waxaan rabaa inaan ka horreysiiyo dhowr eray. marka ugu horreysa, doorashada Minneapolis ee taariikhiga ah saacado kooban baa ka dhiman. dadka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan ku idhaahdo waddanka Maraykanku waddan la sameeyey weeye, organic ma aha. community walibana qiimaha uu sameynayo iyo macnaha uu ku leeyahay waa inta uu isku xidhan yahay oo uu unit yahay. iska ilaawa wixii dhafoorka Soomaaliyeedhay u yaalay oo maanta Maraykanka waxbara, taariikhna samaysta, magacana samaysta. waa ogtihiin Afrikaanka kaliya ee immigrantga ah ee qaxoontiga ah halka aad gaadheen idina ma gaadhin. inaad maanta hawaysataan maayarka Minneapolisna wax easy ma aha. farta dhexda ha ka qaniininina berrito oo idinku hays jabinina. qodobka intaastan ka oranaya. qodobka labaad, waxa Suudaan ka dhacaya. habeen dhaweyd baan waxaan soo qoray intaan sidan loo qaylino wixii magaalada Alfaashil ka dhacay aanay dhicin, ayaan waxaan soo qoray aayad quraan ah oo ahayd wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waclamuu ana allaha shadiidu alciqaab. reer Puntland marka waxaan ka codsaday raggooda iyo hablahooda, dhaqankooda iyo culimadooda inay saameyn ku yeeshaan oo gacanta qabtaan wuxuu Siciid Cabdullaahi Deni sameynayo. ayaantii la raafayay dadkii reer koonfur galbeed laascanood laga raafayay oo nidaamkii SNM ay ka raafayeen, dabcan waxaa jiray dad reer laascaanood oo raabkaa ku faraxsanaa oo qayb ay ganacsatadu ka mid yihiin. maalintaasna waxaan ku iri, isla aayaddaasaan ku akhriyay, waxaan ku iri nidaamka gooni ugoosadka waxaa sameynaya iyo dadkiina ku faraxsan oo hadda waxa la arkay sameynayo, waad ogaan doontaan ciribtay reebta arrintaas. waxaa ka dhaxashaana waa arki doonaa. wa ficlanna way dhacday. laascanood wixii ka dhacayay baa ka dhacay. waxa marka Suudaan maanta ka dhacaya oo dadka madaxda Soomaalida sheegtaa isku wada daro ay ka aamusan yihiin oo lagu khasbay inay ka aamusaan oo waddankooda waxa la wixii la rabo laga sameynayo oo nin kelmad ka odhan karaya aanu jirin min federaal ilaa iyo gobol. wuxuu tilmaamayaa dalka taladiisa waxa haya inay yihiin labeeb, waxaan dhadigna ahayn, labna ahayn, mar hore laga danaystay. oo waddanka yar ee dariska ah ee tamarta darani uu duleystay. maalin dhexdaasa waxaa hadlay sheekh la yidhaahdo Sheekh Maxamed Abu Yuusuf oo sheekh albeledka Garoowe ah, sirra yaqaan oo rabbi yaqaan oo bini aadamku fahmi karo buu u hadlay. waxaana dhahay sheekha garab ha lagu siiyo codkaas qiimaha leh, in waddankeennii la burburiyey, in dadkeennii la isku diray, in dowladnimadeennii la wiiqay, in dowlada shisheeye shirka inoo galeen. waxa ka dhacaya Suudaan haddaynu Soomaali nahay inaynu raalli ka noqono ma ahayn, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaaladiisaan la sugaynaa.
cidda waxaa gacanta ka geysatay ee garabka ku siinaysa isla markaana rajaynaysa in ay darajo ku gaadhaan. qodobka muqadamada ugu dambeeya e-visa waxa la yidhaaho oo dowladda Soomaaliya ay ku soo rogtay waddanka Soomaaliya in lagu soo galo, dad badan baa ka qaylinaya. e-visaha waxa laga doonayaa waa baasaboorka ajnabiga ah ee Soomaaliya ku socda. qofka ajaanibka ah ee Soomaaliya ku socda ayaa waxa laga doonayaa inuu dalbado dalku galka waddankaas. waxa la yaab leh waxa weeye ninka Hargeysa jooga oo e-visa u qaadanaya Addis Ababa, oo Addis Ababa e-visa la'aantiis aan geli karayn, oo doonaya dadka ajaanibta ah ee shisheeyaha iyo Soomaalidaba isugu jira inay waddankiisa iska soo galaan. miyuusan caqli lahayn? maxaa kasi ah? waxay riga lahaa sorry, machine baa igu startnaa aan iska daminayay. ninka Ethiopia markuu aadayo e-visaha qaadanaya oo wajaale aan ka gudbi karayn fiisa la'aan, oo doonaya waddanka Soomaaliya in la iska soo galo sidii waddan aan cidina lahayn, qofka maxaa lagu tilmaami karayaa? Somaliland waxa la yidhahdaa waa jacayl. Hargeysa iyo Burco markaad joogtid waa wax jira, laakiin wajaale markaad ka talawdid waa wax adigu aad jeceshahay. ma aha wax waaqici ah oo xaqiiqo ah oo dunida ka jira. taa haddaadan aqbalsanayn oo aad dafirsan tahay kulama yaabayo, maxaa yeelay 34 sanaad been ku noolayd. sidee baa u doonaysaa adoo baasaboor Ingiriis ama Maraykan sita ama ajnabi ah inaad iska gashid waddanka? nin waayeela oo deeda 70 ku jira oo ciro iyo xukuumaddiisa ku caayaya inay saraakiil Taiwan ku xayran yihiin Ethiopia, oo la weydiinayo e-visa. waddankan horaa loo dayacay. waan uga mahadcelinayaa Axmed Macallin Fiqi ninka la yidhaahdo oo bilaabay reerkaas in runta lagula hadlo. haddii runta mar hore lagula hadli lahaa xaqay u soo laaban lahaayeen. Soomaaliyana waa waddan ka jira dunida oo dowlad ah oo sharci leh, xaqna u leh in la ixtiraamo. haddaad baasaboor ajnabiya sidatid waa inaad qaadataa dalku galka waddanka. ha isdhibin, ha ishalaagin. haddaad aaminsan tahay wax Somaliland la yidhaahdo, Burco iyo Hargeysa gudaheeda ay xaqiiqo ka tahay. hawada waa jacayl jira oo dad jecel yihiin, laakiin waaqic ma aha. qodobkan intaan ka oranayaa waxaan u soo laabanayaa 4 qodob aan wax ka dhahdo. shirka Djibouti lagu qabtay oo Ismaaciil Cumar Geele la yidhi 1,000 qof buu isugu yeedhay Soomaali ah. kuma dheeraanayo, laakiin waxaan rabaa inaan sheego Djibouti shirkii lagu qabtay Carta ee Cabdiqaasim Siraad lagu doortay wuxuu ahaa qofkii koowaad ee Soomaaliyeed oo anigu sida loo taageero waxba taageerada aan ku bartay. shirkaasaad ka war haysaan habeenku dhammaaday. Cabdiqaasim iyo waftuu hogaaminaya waxay u baxeen New York. New Yorkna dowladda kama soo noqon. markiiba tiim lagu darsaday oo shaati guduudi ay ka mid ahaayeen oo waftiga New York madaxweynaha raacay ka mid ahaa, Addis Ababa ay ka degeen. halkaas si jaraad ku qabteen oo yiraahdeen waxa waxba kama jiraan. Ismaaciil Cumar Geele ahaa qayb libaax ninka ka qaadanaya. Ismaaciil Cumar Geele ma walaalba ma xabiibba
سواعد وقمت سوالة لا اسماعيل عمر قال Soomaaliya wuxuu la dhaqmayaa wadan isagoo madaxweyne ka yahay wuxuuna la dagaalamay oo uu talada wadanka ka ilaaliyay qof kasta oo Soomaali ah oo ku fikiraya inay Soomaaliya ku soo laabato saaxada caalamka Ismaaciil Cumar Geelle saddex qaybood baa u tagay wadada qoladan hadda la yiraahdo siyaasiyiinta 99% waa hanti uu iska leeyahay Ismaaciil Cumar Geelle 30 sano iyo 20 sano dad uu samaystay way qaybta isaga iska leh waan qaybta ugu badan qaybtaas iyo qaybay iyagu khaldeen oo ugu sheekeeyeen waa walaalo waa daacado waa ehelo waa kan oo warmoog ah qayb baasbooro iyo akoon kule akoon bankiga la dhigay Salaam Bank oo hantida ummadda Soomaaliyeed taalo Ismaaciil Cumar Geelle uu iska leeyahay inta ugu badan saddexda qola isugu tagay meesha Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ku bixiyay hablo inaan Soomaaliya dawlad noqon maxaa saadtoon gabadha loo siiyay Ismaaciil Cumar Geelle waxa dhiba in Soomaaliya lafta dhabarka ay ka jaban tahay lafta dhabarka loo kabo oo dalka ciidan loo sameeyo Ismaaciil Cumar Geelle maxaa loo siiyay saadtoon gabadha kunada iyo sabaalada ninkii gabadha loo siiyay oo igarka aan gaagaxayn looga xidhay goobta ma uu garandhan loo guuray iyo hawsha geediga mana geeyo cadku goobay oo ka garano waa gabay hore xasan sheekh maalintii la doortay oo uu shahaadada guddoonsiinayay muxuu yiri waxaad naga kicisay miyuu yiri buur mise waxaad dumisay buu yiri buur